waad salaamintihiin meel kastoo daafaa caalamkaad ka joogtiin. qisada filimka maanta waa filimka Sow 2004. fadlan intaynan gudagelin sheekada filimkan subscribe channelkeena si aad la socotid qaybaha kale. filimku waxa ku bilaamayaa laba nin oo ku xidhan masquul ama suuli. midba gees ayaa ku silsiladaysan yahay, midkoodna ma oga sida uu halkan ku yimi. ninkan idin muuqda magaciisu waa Aadam, ninka kale isna magaciisu waa Dr. Lawrence. waxayna arkeen meyd dhexdooda yaala, gacanna rikoodh ku haya, gacanta kalena booskaalad. Aadam wuxuu jeebkiisa ka helay cajalad, rasaas iyo fure. labadooduba waxay isku dayeen inay furahaas kaga furaan qufulka ku xidhan, balse furihiisi ma aha qufulka. Aadam wuxuu xadhig ku soo jiitay rikoodhkii ninka dhintay gacantiisa ku jiray si uu u dhegaysto cajalka. cajaladana waxaa ku duubnaa fariintan: aadanoo kac oo isbadbaadi. malaha waxaad isweydiinaysaa halkaad joogto. waan kuu sheegi doonaa meeshaaad joogtid. waxaa laga yaabaa inaad ku jirto qolkii aad ku dhiman lahayd. maxay arkaan dadka musaafirka ahi markay muraayad isku eegaan? hadda waxaan ku arkaa inaad xanaaqsan tahay, haddana aani naxariis kaa muuqan. waxaad daawanaysaa naftaadoo dhimanaysa maanta, ee maxaad u qaban kartaa aadanow? Dr. Lawrence ayaa ka codsaday inuu u soo tuuro si uu isna u dhegaysto cajalkiisa. waxaana ku duubnaa fariintan: Dr. Lawrence, fariintani waa wicitaankaagii toosinta. maalin kasta oo noloshaada shaqo ka mid ah waxaad dadka siisay war ah inay dhowaan dhiman doonaan, balse maanta waxaad noqon doontaa sababta dhimashada. ujeeddada ciyaartan waa inaad disho aadam. waxaad haysataa 6 saacadood si aad u disho, haddii kale dhiiggaaga suntu intaas leega ay ku jirto. waxa kaliya kuu hadhi doonaa waa inaad istoogato. waxaa jira siyaabo aad ku guulaysan karto tan qarsoon ee reerahaaga ah. xasuusnow, haddii aadan dilin aadam 6 saacadood gudahooda, ciyaartan Anderson iyo Diana way dhiman doonaan. Dr. Lawrenceow, anna waxaan kaaga tegi doonaa qolkan si aad ugu qudhanto ciyaartu ha bilaabmato ee qalbigaaga raac. digtoorka ayaa Aadam u sheegay inuu eego flaashta musqusha, waxaanu Aadam ka helay miishaar. labadoodu waxay isku dayeen inay silsiladda iskaga jaraan, balse uma suuro gelin. Aadam ayaa xanaaqi ku jabiyey muraayaddii qolka, balse digtoorku waxa uu ka fikiray inuu xujo kale furayso. waxaanu xasuustay mar dembi baadhayaashu ugu yimaadeen xafiiskiisa oo kiis uu soo galay. nin lagu magacaabo Bool oo si arxandarro ah loogu dhex dilay silig seefa ah ayaa qalinkiisa laga helay goobta dhimashada. markaa dembi baadhayaasha waxa uu sheegay inaanu dhakhtarka kaba bixin 24 saacadood ee u dambeeyey. waxaanu garwaaqsaday in dilaaga dilay ninkaasi uu ka dambeeyo ciyaarta dhimashada. ninkan Bool ayaa lagu magacaabi jiray, isagana xujadiisu waxay ahayd inaanu ka dhaqaaqin halka uu taagan yahay, raadiyana xadhigga ka furaya siliga intaanu wakhtigu dhicin, balse waa adkaysan waayey oo siligii ayaa dilay. sidoo kale dembi baadhayaashu waxay u tegeen Amanda oo ahayd dhibbanno ka soo badbaaday xujada. fariinteedu iyada waxay ahayd: mishiinka madaxa kuugu xidhan halkiisa dambe waxaa ku xidhan saacad daqiiqad soconaysa. intaan wakhtigu kaa dhicin waa inaad heshaa furaha adiga oo ka kacayn kursiga, haddii kale mishiinka ayaa afkaaga ilaa madaxaaga intiisa dambe ku jaraya. siday wax u dhaceenna ayayna Amanda u sheegtay dembi baadhayaashii. haynu u soo noqonno Aadam iyo Dr. Lawrence. weli sidii ayay xidhan yihiin. aadam waxa u muuqdaa mid aan xakamayn karayn cadhadiisa. digtoorka ayaa u tuuray boorsadiisa lacagta aadam si uu u arko sawirka carruurtiisa ee dilaagu qafaashay. sawirka gadaashiisa waxaa ku qoran fariin ah: eges ayaa ku calaamadsan goobaha. mararka qaar wax badan ayaad aragtaa marka indhahaagu xidhan yihiin. digtoorku wuxuu derbiga ku arkay calaamadda eges. waxaanu jebiyey gidaarkii. waxaanu ka helay sanduuq ay ku jiro moobayl, sigaar iyo fariin. fariinta waxaa ku qoran: sigaarku waxyeelo ma leh, laakiin waxaan ballan qaadayaa cabbistiisu inay sun leedahay keliya marka dhiiggaagu gaadho. ka fikirtan uma baahnid booskaalad si aad u dishid aadam. wuxuu sidoo kale moowalkii ka wacay xaaskiisa iyo nintiis yarayd. markii uu maqlay oohintooda, iminka digtoorka waddo kale ma leh aan ahayn inuu dilo aadam. aadam ayaa helay sawro, waxaanu u tuuray digtoorka, waana goobtay ku xidhan yihiin qoyskiisu iyo saaciidaha dilaaga oo ku qafaashay xaaskiisa iyo nintiisaba. ugu dambayn 6 saacadood way buuxsameen, welina digtoorku muu dilin aadam.
markii gacanyaraha dilaagu damcay inuu dilo xaaska doktoorka iyana isdifaaciso, doktoorku wuxuu go'aansaday in lugta silsilada ku xidhan uu iskaga jaro miishaartii si uu u gaadho booskaaladii ninka dhintay gacantiisa ku jirtay una toogto aadam. markii uu toogtay aadam waxaa qolkii soo galay gacanyarihii dilaaga isagoo raba inuu dilo doktoorka maadaam uu wakhtigii ka dhacay, balse intaanu toogan waxaa badbaadiyey aadam oo dhaawaca ahaa. waa iska dul ooyeen labadooduba. doktoorkuna qolkii waa ka baxay isagoo lugta go'on tahay. waxaa soo hadhay aadam oo dhaawac ah welina ku xidhan halkii. yaa ku soo toosay aadam. haddaba ninkii ay u haysteen inuu dhintay ee u dhexeeya labadooda waa Jigsaw oo ah dilaaga filimka iyo maskaxda ka dambaysay ciyaarta dhimashada. waxaanu aadam u sheegay in furihiisii silsiladu uu raacay biyihii oo ka soo dhex baxay filimka bilowgiisii, cid badbaadin kartaana ayna jirin, meydkiisuna uu ku dhex qurmi doono qolkan. sidaas ayaanu ku dhammaaday filimkan cabsida iyo dhiigga badnaa. waa inoo qayb kale oo xiiso leh. hana ilaabin like iyo subscribe inaad tidhaahdid channelkeena si aad ula socotid qaybaha kale ee soo socda. mahadsanid.